warar aan weli dhamaystirnayn baana soo gaaray oo arrimaha u eg. waxay ahayd cabdikariim sheekh muuse hogaamiye halgameed oo siyaasi ah oo dawladda etoobiya uxidhan bay ahayd in luqluqyo iyo odayaal iyo uu magan u ahaado, in kolba meel lagu qariyo, in amnigiisa jireed iyo maskaxeed gasho, in sidayn iyo hayn wax udhexeeya uu noqdo. arrimahaas waxa weeye arrimo aada uga baxsan weeye nidaamka caalamiga ah ee maxaabiista siyaasiga. amnigiisa yaad uga cabsanaysaan? amnigiisa waxa weeye dawladda etoobiya iyo systemka sameeyey in la sii daayo islamarkaana aan la sii daynin. xaafad baa lagu hayay, haddana lama sii daynin muddo 20 beri ah. maxbuusna ma ahayn, xorriyadda ma haysanin. habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga ah charterka muxuu ahayey dagaalkii labada adduunka maxaabiista siyaasiga loo xukumay. marka hadda inuu odayaalla joogo cabdikariim sheekh muuse waa inuu xorriyadiisa siyaasiga helo, reerkiisa iyo dadkiisana la hadli karo, ammaankiisa jireed iyo maskaxeedna waa inay sugnaato wey. waxaa jira sawiro laga soo qaaday cabdikariin oo la taagan dabcan dad odayaala ehelkiisa oo faras magaalaha Addis Ababa ku sugan, aada u dhoolla cadaynaya, ay ka muuqato inuu faraxsan yahay. dabcan waad aragteen sawiradaas? sawiradaas saxaafadda la soo dhigay hadda ka hore kuwa isagoo madaxa Soomaaliya kamida la sawiran. marka cabdikariim lasla sawira islamarkaana aan la sii daynaynin, haddana uusan xor ahayn, haddana la sii daayay, haddana lasla sawiri karayo. situationkaasaanu aada u diidanahay. cabdikariim sheekh muuse waa inuu xorriyadiisa siyaasiga iyo xorriyadiisa dabiiciga ee asaasiga ee insaaniga waa inuu helo wey. marka halkeed rabtaan in la geeyo? maxay tahay waxaa idinka aad dooneysaan dawladda Etoobiya inay samayso? dawladda Etoobiya cabdikariim sheekh meel xorriyad ku dareenayo inay geyso wey. waa inuu reerkiisa u tagi karo, waa inuu u socon karayo, u safri karayo, Etoobiya u safri karayo ama u joogi karayo si xor. halkeed jeclaan lahaydeen inuu aado? inuu reerkiisa gaaro wey. oo halkee ah? reerkiisa qaxootiga Kenya joogaan ku ahaayeen meel uu xorriyad dareemayo, kala hadli karayo, oo ururkiisa kala hadli karayo, oo shacabkiisa kala hadli karayo, oo uu cadayn karayo inuu xor yahay, ammaan maskaxeed iyo jireed ahaa. qalbi dhagax ma jeclaan lahaydeen xamar inuu ku laabto Soomaaliya? qalbi dhagax nabadgelyadiisa ma hubno ee Soomaaliya, laakiin meel sugan amnigiisa inuu tago ayaanu jecel lahay. waa la sheegi karaa goobta laakiin dawladda Soomaaliya ee soo iibsatay inuu mar kale gacanteeda galo ama uu hoos yimaado meel ay ka talisay dawladda iibsatay ma jeclin. waay go-aankiina muxuu yahay ku saabsan dawladdan Etoobiya ee hadda uu madaxda ka yahay Abiy Ahmed, tallaabooyinka la haatan qaaday? urur ahaan idinka seed u qiimayseen? maxaad ka aaminsantihiin? go-aankana waxaa weeye anagu isbedel ka dhaca dawladda Etoobiya oo dimuqraadiya waan soo dhaweynaynaa. ilaa iyo hadda isbedelada dhacay waa kuwo ashkhaaseed si beerdheertii waddanka maamuleysay baa madax kuwii hore ka duwan keentay. tallaabooyin positive qabeen, isbedelo fundamental ama aasaasi ah oo arrimaha waaweyn laisku aqbalan leeyahay laga fadhiyaa, oo kamid tahay qadiyadda Soomaalida hogaaminaya, qadiyadda shucuubta dalka ka qabtay dawladda dhexe Etoobiya ama kamid tahay cunto kamid tahay beelo kamid tahay administration kamid tahay arrimaha waaweyn ee haysta dalkan hadda loo yaqaano Etoobiya ee ummadu isku diidan yihiin. dawladda Soomaaliya inay geesinimo ay ku waajahdo yeelataa looga fadhiyaa, inay umuuraha nabad ku xalisaa looga fadhiyaa, shucuubta xaqa siyaasiga iyo ururada xaqa siyaasiga ummadooda inay matalaan, ana lagu xaliyo khilaafaadka looga fadhiyaa. sidaa wey ra'yigeedu. wax xiriira ma idin dhex maray oo aynalaf ahaan iyo dawladda Etoobiya ilaa hadda, si dadban iyo si toosaba? weli xiriir toosa nama dhex marin, laakiin fariimo siyaasa baan isku dhaafsanay meediyaha oo positive. waxaa ka muuqday astaamo muxuu ahaayey positive dawladda Etoobiya muujisay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha. annaguna jawaab positive aan ka bixinay. weli waa sugayna marka laabada dhaba in loo qaado dhinaca hadallada iyo xalinta khilaafaadka asaasiga ee
shacabka Soomaalida iyo dowladda Itoobiya u dhaxeeya. Marka waxaan isleenahay kubadda dhinaca dowladda dhexe Itoobiya ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayay jirtaa baan isleenahay.